بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج كان إيش عاشق عاوح إنه قصة قادنينا مالنتا ليرة هذا أفري طبعا فبراير ودوينها لوجيا قانو مالنتا شعيرك عيد الحبنا ليرة هذا فالنتينز دينا لوجو مقعابه وحبرنامج كان يلقي قادنا فضيلة الشيخ محمود الشيخ حسن آدم أبو ضلحة وكم يدعو علماء الدين كقول قن وطن كبينمارك مقالة كولدين. السلام عليكم ورحمة الله الشيخ محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا. الشيخ أبو ضلحة صدقت هبة ما أنت أكره بحال إلى هذا أفري طبعا ومالنت شعيرك حقي أي مركز أصل أي كل هذا هاي مالنت شعيرك يعني حقي بكتمد فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد مركب روحا سلاما يا باديها برنامج كان أبو أحمد أبو هريرة بنوتشدا إلهي تبارك وتعالى حيث كدغك وأديق بلشدا يا مجتمع آمين. أنت كدب آمين. نعم. تقضى ay soo guuriyaan dadka taariikhda ka hadla ee mu'arikhiinta loo yaqaano habab kala duwan ayay u soo guuriyaan. marka koobaad haddii aad riwaayooyinka ku soo arooray maalinta ay u bixiyeen maalinta jacaylka ama ciidul xubbi oo ku aadan 14 bisha labaad sanad walba oo la soo mara waxay tilmaamaan waxa Roomaaniyiinta nimanka loo yaqaano أول وحياة هاي نمان دبعة قرية عابدة أما أسنان تعابدة أي أهايين. نعم. هذا من كان الصجع أرنتان الصجع الله مقع بحي أيا وحوت المامية وقتي كمذا وكا أيا نكم بقرك وحو كتشوتشي إذا مديسي دجال لقتشري أوجد wax la yiraahdo guur ama dumar wax loo yaqaan kadibna ninkan hadda magacaas iska leh ayaa arintaas ayada ka hortagay si hoos ahaana bilaabay inuu dadka isu guurguuriyo ama uu ragga iyo dumarka isu geegeeyo. ninkii noocaas ahaa marka dambe waxa markii arinta la ogaaday oo ka joog la yiri oo uu diiday ayaa ninkii boqorka ahaa ee Roomaaniyiinta boqorka u ahaa ayaa arinta darteed u dilay bay dhahaan. sida daraadeed nimankii Roomaaniyiinta ahaa waagi dambe waxay qaateen diinta nasaarada ayay qaateen fikirkan kirishtanka ayay qaateen ay ku qanceen kadib ayay waxay isweydiiyeen war ninkii kirishtanka ahaan jiray ee arintan xubbiga iyo jacaylka iyo isu zinada uu isku geyn jiray dadka annagu ma dhahno yawmul hubbi waxaan dhana yawmul zina waa maalin ibaahiye iyo waan tilmaami doonaa haddii fursad kale su'aashaan u helo inayna ahayn arintani ay tahay banaansho loo banaynayo dhalinyarada iyo da'yarta khaasatan muslimiinta tarbiya xumo la siinayo in zinada ay ku barbaaraan. ninkii noocaas ahaa waxaa la yiri haddaba ninka aanu weynayno maalintiisina aanu ciid ka dhigno aanu ku magacaawno maalintii jacaylka iyo xubbiga asagana aanu ugu magacaawno. riwaayad noocaas ayay leedahay. riwaayada markaad fiiriso marka laba mabda' bay wadataa ama laba ideolojiyo ama laba mas'alo. mid waa mas'alo fasaad iyo intishaar bizina midna waa mas'alo caqiida iyo gaalnimo iyo kufri salka ku haysa وين لوينين ينين قال وين لوينين أفكار خلدن أو الإباحية اللي يقع روايين بدن بيشجعان لكن رواية عن إسلاهي كوجا صو سؤال هذا كوسو أروري تاس أيان إسلاهي والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا الفاضل وبارك الله فيك. شيخنا الفاضل وحد وقتها إن سابق كتابة أي أصل أي أرنتنا أي كل هذا هاي نصارى وأيجو صو اختراقين صونا هنا المالنتن dad badan oo muslimiin ayaa waxay ku bixiyaan kharash dhar la soo iibsado cascas oo baxyo la isu geeyo. arrintan marka dhalinta maanta ku dhaqan qurbaha oo aynu ku korsanayno sidee baa looga badbaadin karaa
in lagu daydo dhaqan asalkiisa uu gaalo ka yimisa diinta islaamku maxay ka qabtaa kusoo dhow sheekhan alfaadil baaraka allahu fiik. alxamdu lilah waa su-aal qiimo badan oo wanaagsan waaqicana tilmaamaysa ee waxaan leeyahay wabilaahi tawfiiq. horta jacaylka ilaah baa la jeclaadaa oo nebi maxamed baa la jeclaadaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam, oo waxaa la jeclaadaa mu'miniinta, oo waxaa la jeclaadaa in allah inta kalimatu tawxiid iyo laa ilaaha ila allah tiri, waxaa la jeclaadaa wax kasta oo xalaala oo sharcigu baneeyey oo ay ka mid tahay guurka xalaasha ilaahay uu noo baneeyey tabaaraka wa tacaala. haddaba jacaylka noocan ee maalinta dhalinyarada lagu tallaalay sidii irbadii lagu tallaalay sidii geedkii laga dhaadhiciyey inay tahay maalintii jacaylka, su-aal baan rabaa qof kasta oo dhalinyaro ah muslima afkaartan xumbaarsan inaan weydiiyo. hal maalin ood wax jeclaato miyaa xayaato iyo raaxo ah, mise 12 bilood in qalbigaagu xubbi iyo jacayl kuugu jiro aad alla iyo rasuul iyo mu'miniin uma zawjadaada aad jeceshay xaaskaaga iyo qaraabadaada, horta tay raaxadu ku jirtaa? waa su-aal da'weyne. haddii anigu aan ku soo degdego waxaan dhihi karaa arrintani waa maaweelo. waxaa la maaweelinayaa qofka naftiisa isku maaweelinaya, maxaa yeelay dad ka fogaaday qalbigoodu ka maran yahay xubbigii allah iyo xubbigii diinta islaamka iyo xubbigii jannada iyo xubbigii wejiga alle inay arkaan. dad qalbigooda ka marani goorta ay doonayaan inay sacaado helaan oy liibaan helaan waa in ay raadiyaan wax ay isku maaweeliyaan, asal iyo raadna ooga dhigaan wax la yidhahdo jacayl iyo xubbi. amaa ninka akhyaarta ahee muslimka ee wax garanaya xaaskiisa maalin walbuu jecel, salaadii buu jecel yahay, xaaskiisuu jecel yahay, caruurtiisuu jecel yahay, sujuudduu jecel yahay, salaatuleylkuu jecel yahay, mu'miniinta ayuu jecel yahay, allah iyo rasuulkiisa waxay soo dejiyeen baa asal u ah jacaylkooda. halkaa maalin oo la yidhahdo waxbaa la jeclaanayaa, ayo maalmihii kalena magac bay u bixiyeen qurux badan laakiin ay suni ku duugan tahay iyo zino. walidaalika wax laga xumaado ah nin weyn oo muslima islaamnimo ku dhashay inuu dhaho maantaan marac guduudan soo qaadan oo baarso guduudan gabadhi ay soo qaadanaysaa, ubax guduudan uu soo gadayaa oo kaar yaroo guduudan uu soo qaadanayaa oo uu leeyahay maxay maanta meel baan ka soo cuntaynaynaa, waa maalintii jacaylka. haye maalinta kalena isniinta soo socotana, talaada soo socotana, arbacada soo socotana, jumcada soo socotana, bisha soo socotana. idan jacaylka qofka muslimka waa wax qalbiga ka soo go'a. sawirro in la jeclaadana ma aha, aragti gaalo in wax lagu jeclaadana sharcigeenu ma banaano. man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, qolo qofka isu ekaysiiyana ayagu ka mid yahay nabi sallallahu alayhi wasallam. wallahi buu nabi ku dhaartay عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم رواية كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. والله كوا إذن كور ريبا راعي دونتانا ويهودي نصارى قفك مسلم كان النبي محمد راعيتان كيسال أمري صلى الله عليه وآله وسلم كديشدي سال أمري وحو جعلان شري قارتو جعلان شري سو وحو جعلان شري إيه وحو كعرري شري انتبا أرنتاسي وأرن صل يراد شرع الإسلام كان كلهين جعيل إيه حبنا ما هو صن إيه وابي إيه وحلو قد إيمانا يهلق الدكتورادو والله أعلم. وحنوم على الشيخ محمود الشيخ حسن وحلينا الشيخنا الفاضل بارك الله فيك جزاك الله خير. برنامج كان قلق بشيء تليفون كبا وحنا أن داودياش أن كبر رجلي أنا عجلدا لسيشة رجريو لقنا فائدة علمي الشيخ محمود الشيخ حسن أبو ضلحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.